الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومحي آدابتا iyo ducada la rabo in qofkii muslimka ee Soomaaliya uu ku afro isagoo kaga dayanaya nabigiisa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Waxa dhacda marar badan in qofkii maanta dhan Soomaaliya gaajeysna oo mana ee daalana markay qorraxdii dhacdo ee uu maqlo adinka in waxa ugu dhow uu gacanta ku dhigo afka saaro, balse taa waxa ka fiican oo ka fadli badan inaad isweydiiso qaabkee ayuu nabigaada Muhammad sallallahu alayhi wasallam u afuri jiray kadibna aad ku dayato, waayo waa calaamad ku tusinaysa jacaylka aad u qabto xabiibkaada Muhammad sallallahu alayhi wasallam. dadka nabiga jecel ee ku daydana maalinka yawmal qiyaamah mixiisa ay noqon doonaan. marka u horeysa nabigeena sallallahu alayhi wasallam wuxuu u bishaareeyay dadka Soomaali, wuxuuna yidhi qof waliba oo Soomaali oo muslima waxa u sugnaatay waqtiga uu afurayo duco mustajaaba ah, duco la aqbalay oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uuna soo celinaynin. marka waxa u horeeya sameyn maxay tahay? marka aad afurayso ducayso Ilaahay khayr adduun iyo mid aakhiraba weydiiso, inuu Ilaahay soonka ka aqbalo weydii, inuu Ilaahay dambigaada dhaafo weydiiso, hooyada iyo aabaha haddii ay dhinteen ama midkood dhintay Ilaahay inuu naxariisto weydiiso, haddii ay nool yihiin inuu Ilaahay ku xafido oo uu dambigooda dhaafo weydiiso. muslimiinta idin la u ducee. markii la aadimo waxaad ku bilowdaa timir walina tira isdheer, ku xijisay biyo iyo wixii kale Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku siiyo, ka dambana akhriso ducadan uu nabiga sallallahu alayhi wasallam akhrisan jiray oo dheh dhahaba dhama wa tallat al-uruq wa thabata al-ajr insha Allah, oo macnaheedu yahay oonkii waa tagay, xididadiina waa qoyeen, ajirkiina waa sugnaaday insha Allah ta'ala. waayo qof waliba oo Soomaali ajir ma helayo. dad waxaa jira Soomaali oo aan soonkooda la aqbalin, oon gaajo iyo rafaad mooyane wax kale aan ka faa'iideynin. Ilaahay subhanahu wa ta'ala kuwa nagama yeelo. soonkan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha aqbalo maca nabiyyiin wa siddiqiin wa shuhadaa wa saalihiin. ilaahay naga dhigo. السلام عليكم ورحمة الله. رمضان أقبل يا أولي الألباب فاستقبلوه بعد طول غياب. عام مضى من عمرنا في غفلة فتنبهوا فالعمر ضل سحاب. وتهيئوا لتصبر ومشقة فأجور من صبروا بغير